وميل داد جيل oo jeel dad ku xiran yahay oo karbaashku ka socdo oo jeemanka waaweyn lagu garacaya dadka oo calaadka ka yeeraya labadii dhagood gawa baa iga yeedhay ummadda halkaa ku xirxiran jinni iyo muslim dadku waa isugu jiraan jinni iyo insiba ilaahay baa awoodiisa ugu tusay subxaanahu wa tacaala gaal iyo muslimba dadku waa isugu jireen qolol dhan oo saa u safan baad arkaysaa darbi dheer oo aan la fuuli karin baa dhinacan ka ah intaas oo tarsiga derbiga tarsiga hoostiisa guryo ku yaalan waa guryo gaagaaban oo xayn ah ilaa 6 ilaa 7 waa buuxaan albaabadooda hore waa bir shabaq leh qof isaab ay wada haystaan iyagoo ooyaya oo cabaadaya oo qaarna Allah buu baleeyahay waa muslim qaarna Jesus Christ iyo balay ku qaylinayaan iyo waxaan la garan karayn ilaahay baan bariyo waxaan ku waa albaan u naxay albaan u khalkhalay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال سلامتاس آتك وقيمة بدن كدب رمضان كريم إن شاء الله تعالى عاوة وحائنو بلابن سبيش رمضان إلهي وحن كبر يا عز وجل إنو نوافجي أعماشة تدعو عن نغانا أقبل ربي سبحانه وتعالى وحن قصة إذا كسود حقا ولا ليال إن أغيسيس ولا لها رير يوروب يوروب جوغا سافر كي رمضان كدب أن إنو إيمانيا وليسي جري سبب جري درتود وأن كباقضي سيدو كلا ولاليه أستراليا أسو سعودي waan kasoo tegay Australia waxaan joogaa dalka Kenya insha Allah taala walaalihii damacsana inay Australia yimaadaan waa ay u bedelan karaan safarkooda Nairobi Kenya waxaan joogi doonaa insha Allah taala waqti aad u gaaban saan rajeynayo safarkii markaan baxayna insha Allah taala idin la socodsiin doonaa waxaan igala soo xiriiri kartaan nambarada kala ah 254 741 2800 05 haddaan ku celiyo waa 25 47 41 28 eber 5 kan kaleetana waxaa weeye insha Allah tacaala waa isna sidoo kaleeto 2 5 4 71 eber 3 57 31 sideed baa u dambaysa haddaan ku celiyana waxaa weeyaan waa 254 710 357318 insha Allah tacaala halkaas igala soo xiriiri kartaan ciddii markaa u baahan booking inay samaysato walaalaha waxaan la hadlayaa markaa safarkoodii uu Australia xagga u soo socday walaalayaal haddii aad wax dhiba kala kulantaan walaalaha taleefanka idinka qabanaya waxaad wixii cabasho ah ama dacwo ah noogu soo diri kartaan emailka shaashada ama muraayada screenka hadda ka muuqda ee ah dacwo.ruqyah@gmail.com haddii aan ku ceshana waa dacwo.star.ruqyah@gmail.com إن شاء الله تعالى ولا ليال قصة هذا أن هردع هانت أسوق قيبت هذا أن هردع هانت أسوقات قصة وحي كهالليس إن شاء الله تعالى حبسيو لو سميستي إن لو جردلو لو عقابه جنك مركا ديدا شقادي لو دري سحرك مثلا مركي قفك لو سميو جنك لا ديرو قفك هدو عبادة بدن يحي أي سو عرران ماليه لوgu talagalay in lagu ciqaabo si shaqadooda ay u sii wataan waa xabsiga hadda in sha Allah taala maamud ay soo qaadatay qisadana gadaal baad si fiican uga fahmi doontaan dhageysi waan insha Allah taala ilaahay naga dhigo kuwii ku cibra qaata oo ka faa'iideysta wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال سلام آد أسريس كذب عاوة سيدي هربا أنو قبرتين برنامج جدين إنو سعون جري أها أود الله سبحانه وتعالى إنو قرآن كي هيداو وحن ما نتعاوى إن شاء الله تعالى مرتي إنو هو يصومالية دون كسور دوينيا إن إدو واحد إنو قورنتا وحكو داوانا يدد آدو فربضان ولا لها كميدا ودور كنو قفأ دعاء إن شاء الله تعالى كسور قاري دونتو عبرنا أي نقول دونت أود ربي سبحانه وتعالى أوجا شكينيسو مرك إن شاء الله تعالى كسر برنامج كني أود الله سبحانه وتعالى إنه قرآن كيه داو بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وان دوهي إيدو وحان ربا إنان كهالله معجسوينك إلهي وآد ووين بدنا دادكو يقين سنين داد بدنا وين يقين سنين لكن وح عجائب وما ركتي مسكح بن آذن كوي
in rabbigana wax kasta ilaahay inuu wax walba awoodo oo maaragtay awood laha weyn uu yahay baan halkan ku arkay ما شاء الله mucjiso weligay aanan arag maskaxdayda kusoo dhicin ما شاء oo الله ilaahay inuu baawarka intaa la eg leeyahay aanaba aqoonba xaqiiqatan markaan u hadlo سبحان الله ilaahay baa nastahan subxaan allah intaadan awoodda alle iyo mucjisooyinka iyo layaabka lahaad aragtay aadan u gudbin waxaan jeclaan lahaa marka hore bal xoogaa inaad noo dulmarto maxaad soo martay inta aad xanuun aad dareemayso dhan bal wax yar inoo dulmar kadibna waxaa kugu khasbay in aad qur-aan raadiso iyo waxaad la kulantay marka arrimaha layaab kale dib baan u dhiganayna insha allah tacaala wax yar waxaa inoo dulmartaa maxaad soo martay jasaakum allahu khayran waxaan soo maray eedo waxaan ugu yaraan 27 sano baan xanuunsanaa 88 ba xanuunkan u bilaabay waa soo kala heerar adkaa marka aad baaban u yaraa markuu xanuunku bilaabay waxa weeye isbitaal baan ku wareegaa isbitaal Soomaaliya isbitaal baan ka aaday Kenya isbitaal baan ka aaday Zambia isbitaal baan ka aaday South Africa isbitaal baan ka aaday Malawi isbitaal baan ka aaday Mozambique isbitaal baan ka aaday inta anoo qaxooti ku oo wareegaya oo caruurta wataba haddana xanuunka kan wuxuu igu dhigay xanuun mucjiso ah oo ahaabada oo dhaqaatiirtii garan weyday oo anigii la wareeray waxaan u malaynayaa 27 sano maba seexan jirin hurdaba waxa igu horeysay maalintii halkan quraanku igu bilowday baan hurdo caadi oo bini aadanku seexdo waagii hore aan seexan jiray aan xasuustayba ilaa maba seexan jirinba niyow xaaladdu ha kala daraato hadba meel aan marno dhaqaatiirtii wax weyday halkan hadda Melbourne intaan imid waxaan sanad iyo bar baa dhaqaatiirtii igu samadhay midba ii gudbiyaa mid walba wuxuu dhahaa waxba kuguma hayo midka ka khatarsan buu ii gudbiyaa intaasoo MRI baa la igeliyay nakata gabadhan wax ay qabta male buu yiri dhakhtarkii ugu dambeeyay wuxuu yiri gabadhan wax ay qabta haba yaraatay ma jirto qof ka caafimaad badan hospitaalka Melbourne iguma aha customerskayga maba ku jiro waa adba caafimaadkeedu 100% u yahay waa kuwa Australia jooga Melbourne waa Melbourne waa hal sano iyo bar baa waxay ku leeyahay waxba ka weyn waliba anoo xanuunsantay waliba hal sano iyo bar 9 bilood wheelchair baan ku socday subxaan allah ma garanaysaa waxaa la iga qabtay labadii lugood inkastoo dhinaca midigta u badnaa waxaa la iga haystaa dhabarkii waxaa la iga haystaa dhuuntii waxaa la iga haystaa madaxa adigu inta qaar ka hore aba igu daray minid xanuunku igama dego waxaan suubiyaa marka culumadii markay ii cadaysay inaan meeshaan xanuun dhakhtar oo waxaan ku yiri ilaahagii ku abuurtay maxaad ugu hormari weyday maxaad ilaahay u dhaaftay anigii baa isla hadlay dib aan isugu noqday bar horta allahaagii u noqo haddii waxaan shallaayay an allah ku hormari lahaa intaas oo 27 sano aan dhakhtar wareegay waxaan shallaayay maxaad ilaahay ugu hormari weyday markaasay igu soo dhacday inaan raadiyo facebookan waxaan ka arkay Sheikh Maxamed Istaar Ruqya markaasaana Sheikh Maxamed Istaar Ruqya waa inaa helaa waa kan ninkii dawadayda ku jira 4 bilood aan ku raadinaa ilaahay quraankiisa ku jira laakiin adu sababkaaga soo dhig waxaan ku leeyahay niyow quraankaas saastay tahay ana inta isku tufaay dhowr sheekha quraan la iga saaray South Africa quraan oo sheekha iska saaray Sheikh Maxamed Lado Malawi Sheikh Musa iska saaray haddana Brisbane Sheikh Musa oo iska la nimid qaxootiga iska saaray wuxuu igu akhriyay quraan ciida ka badan waxba iga degay laakiin ma ku caafimaad isaan rabay ma noqon waxa dhacday marka xanuunkan aad buu ii dhibay muddo ijiidanayay dismoral baan noqday waxaan iri bas waaye dhaqaatiirtii waa ka samidhay Soomaaliya iska aad meelahaagas tuulooyinkaaga iska joog intaana sheekh meesha ku aran ka hor sheekhi markaan u imaaday quraanku isaaray waxa waaye dhowrkii hameen oo dhan daba i haystay waa miyir daadsanaa waxba ma maqlayn dhaguhu waa xiraayeen indhaha wax kaba arkayn 3 baro hore situationkaasaan ku sugnaa
inkastoona sheekha u sheegin haddana waxaan lahaa qur-aankii baa weli socda oo waqtigii ma dhammaan. waxaa bacdil mucjisadii wixii ka dambeeyey habeenkii ugu dambeeyey ee 6dii bari baan wareeray. qur-aankii baa sheekhi igu akhriyey, ilaahay baan baryey, magacyada ilaahay oo dhan baan daldalay. marka 3 beri normal ma ahayn, waan wareersanaa. habeenkii afraadna waa miyir daadayba, waxaan ogaa ma jirin. dhulka un baan isla dhacayay, ma isqaban karo, waa ujeedaa. xiskaygu caadi ma ahayn, maskaxda dabaa iga baxaayey, gacantan way dhimatay, way baktiday, bes waa inay qallashay oo annaafobayaan mooday. lugta waa la mid, laakiin lugtaa la ii qaatay, gacantan waxaan idhi bes way dhimatay. naafaa isu goleeyay niyaho, naafo. allah subxaanahu watacaala rabbilciisa jala wajalaaluhu aa i caawiyey, ilaahay baa i caawiyey, ilaahay baa ii soo diray awoodiisa powerful oo rabbi baan arkay. mucjiso wixii dhakhaatiirtu weyday 4 beri baa waxaa iga degay waxaan caadi ahayn. tuura inta ku lahaa tuur waxaan ku lahaa, sawirkeeda wuu yaalaa, gurigu yaalaa. dhowr jeer aan idhi maandhooyow sawira, waa intaasoo ilaahay farji ii fure. gurigaa la dhigay, tuur inta iga saareey oo surka agtiisa ilaa halkaas, ilaa labada garab dhexdooda, tuur intaa la eg baa iga taallay. dakhtarkii markuu saaray raajidii, ma jidhuu yiri tuur, wax meeshaan ku jira male, waa sax jirkaagii. okay, mucjiso badanaa marka aniga arkay, ilaahay awoodiisa. sheekhi markaan u imaaday habeenkii u dambeeyey, tuurtii 4 markii loo qaybsho 3 waa tagtay. waa ilaahay awoodiisa, powerful. ilaahay waa powerful. marka dadka moodaya allah inuu mataqaanaa uusan waxba awoodin, wax walbuu awoodaa. tuurtii baraa iska dhacay, dabkii gacantii iyo lugtii way wateen, laakiin intii hore markaan guriga aado xoogaha intii hore male, way iska fiicnaanaysaa, laakiin dabkii weli wuu i haystaa. habeenkii xalay ahaa hadda oo axadu dhammaanto mandhaydu soo gash, indhahayga ma isku seexan. waagaa ii bariyey, qur-aan baan akhristay, ruqyo aayaan geystay, dhegtaan saartay, waa iiga daray dabkii, waa iska damiyey. waxaan ka ruqyo aaya waaba iiga dadhe, bal demi. baryaan u jeestay, 2 ragcaan tukaday, ilaahu iga biyi, ilaahu iga biyi, ilaahu awoodayd meelaha, addoon daciifaanahay, ilaahu powerfulkaagii aaw, ilaahu powerfulkaagii aaw. ilaahay subxaanahu watacaala subxiga markii la tukan rabay uu iga qaaday. subxigii baan tukaday, waa iska seexday. marka sheekhaan uu imid maanta caawa waa soo kacay. sheekhii baa ballan la lahaa, qur-aan baa la isaaray. mucjisadii iyo powerfulkii ilaahay aan caawa la kulanay. yaqiin aan caadi ahayn, yaqiin aan caadi ahayna caawa gasha. caawa iimaankayga wuu buuxaa, caawa laafuu ahaa. marka maba lahayn ilaah awoodaanito baa kugu samaynaya mucjisadan. caqligayga ma gelayn, weligay iguma soo dhicin. mucjiso weyn oo ballaaran baan arkay. wax yar aan ka dhex galo walaalaha nala socdo baan rabaa insha Allah tacaala inay wax badan na fahmaan, hadallada qaar kamid aan saxo. walaalayaal, marka ay maamadu leedahay يعني waxyaaba aan maskaxdeeda ku jiro aanan ogeyn oo islahayn waa dhici karaan baa dhacay, yani ma aha awoodda rabbigeed ka shakisanta subhanahu wa ta'ala. nabiyullaahi ibraahim alayhi salaam sidaan la socono, markii uu Allah subhanahu wa ta'ala la hadlay wuxuu ku yiri oo Allah tilmaamay subhanahu wa ta'ala suuratul baqara, wa idh qaala ibraahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo tilmaamay ibraahim inuu su'aal weydiiyay rabbigii subhanahu wa ta'ala, uu yiri Allah waxaad i tustaa sida aad wax u nooleyso. الله سبحانه وتعالى وحينو تلمامي إن وجواب إبراهيم عليه السلام مركو الله ويدي يري إبراهيم ما شكي بفوق جرا أولا تؤمن مياه الرميسنين أو حد إبراهيم عليه السلام وحيري بلى ولكن يطمئن قلبي ها ربي جاي والرميسنا هنا وحنوريسو لكن وحن كرهبا إن أي لابتو يحسش قلوبتو يحسش وعادي أقف والبا مركو الرئيس سو ثيوري أهان وهايو الله إنه أود أن نسكلي هاي يا مركو عندي سوكو أركو وكلا دويني laba qof oo kala duwan buu noqdaa. marka maamada hadalka waxa uu soo dhaxgalay inaan nala socotaan insha Allah taala. maamada wuxuu la jeedaa shalay meeshay taagnayd iyo awoodda Allah subhanahu wa taala sida ay u aaminsaneed inay awood Allah tahay, iyo maanta markii horteeda wax ka dhacayn yaqiinta awoodda Allah ee aragtay subhanahu wa taala. laba qof oo kala duwan bay noqotay.
marka eedda sii wada hadalka insha allah waxyaabihii aad aragtay bal inoo dulmar. caawa qur-aankii markii la isaaray waxaa igu bilowday markii ugu horeysay baqdin badan iyo walwal iyo maxaad mudan doontaa. cabaar ka bacdi sheekhi qur-aanka markuu igu waday meeshaasaa midi la iga geliyey, midi laba dhinacba af kule halkaa la iga suray. nin weyn oo awood, ilaahay baa weyne awood, isagu markaa isbidaayay baa halkaa midi iga geliyey. tooreyda markuu waa u jeedaa tooreyda markuu gelinayo. marka waa wixii iigu horeeyaba aan arkay. tooreydaasa iigu horeysay qur-aanka markii la igu bilaabay. tooreydii marka waxaan idhi sheekhow toorey baa i haysata, halkaasa iga haysataa. alla bari buu dhahay, ilaahay bari. ilaahay baryadiisi baan wadnay, qur-aankii sheekhi waday, ilaahay awoodiisi baan arkay subxaanahu watacaala. ninka waa soo orday, wadnuhu iga geliyey toore, isla iyadii buu soo geliyey. tooreydii inta iga haysatay intay usoo wareegtay. tooreydii wuxuu dhahay naftaan kaa qaada, hadda naftaan kaa qaadaya. kabacdina qur-aankii baa sheekii ku waday halkaasuu fuula. waa nin aada u xoog leh. wax yar eedo aan kaa dhex galo si walaaluhu ay bal mar walba update ku helaan. walaalayaal waxaad xasuusataan waxa ay leedahay toorey buu wadnaha iga gelinaya. waa nin ka xoog badan, waa garanaysaa, waa hooyo ujeedaa. nin ka xoog badan, weliba intaasna xoogga iyo weynaanta ku darsada inuu jin yahay. markuu toorey intuu mindi calooshaada ku qabto ku yirahdo waa ku gelinaya, maxaad isdhihi lahayd? haddaan ku dilaa hudha. haddaan ku dilaya maxaad is oran lahayd? indhahaagana aad ku arkayso waa baqaysa, waa cabsan lahayd. laakiin wuxuu waxaa u sameynayaa inuu cabsi qofkii ku abuuro. hadduu qofkaasi rumeeyo rabbulcaalamiin oo yidhaahdo cabsan mayo, waxba igama qaadi kartid, waa inuu taktiiga bedelaa. markay tiri maamadu war waxaad sheegaysa waxba kama jiraan, adaa aniga ku dilaya, eragaas isticmaalaysa, adiga ku dilaya tiri maanta maalinka aniga ku dili lahaa wey. mindidii wadnaha intuu ka qaaday madaxa ka saaray, waa ku dilaya haddana yidhi. marka bal maamada waxaan usoo galay inaad nala socotaan. marka madaxii markuu kaa saarayna maxaa dhacay? madaxa isagii oo dhan baa fuulay. madaxayguu fuulay, mindidina waa saaray. labada lugood buu ku istaagay, waa soo fororsaday, halkaasuu midida iga saaray. culayskiisa laftirkiisa qoortaydu waa dareemaysa. waa nin aada u weyn, allah weyn oo waaxida. nin baaxad la waayo, ilaahay dadka addoommadiisa u baaxadda siiyey ka mid ah. wuxuu qabaa dhar isu eg oo fitijaariga soomaalidu dhahdo, oo surwaalku inta horena u wen yahay intaasuna u dhuuban yahay. waa nin dhisan, waa nin military ah, waa nin ku talagalay mataqaanaa inuu wax uun sameeyo. powerful baa ka muuqday. markii qur-aankii lagu akhriyey oo aan iri ilaahay baa kaa weyn, ilaahay baa kaa weyn, awoodda ilaahay baa jirta, awood maliid, daciif baa tahay, shadaadiintaa tahay. oo sheekina qur-aankii ku akhrinayo anigana qur-aanku maxay tahay bilfalaq iyo magacyadii ilaahay ku akhrinayo. ninkii waa degay. markuu degay, ninkii markuu inta ka degay dhulkuu degay, halkaanuu ka soo jeestay, halkaasuu yimi. halkaa markuu yimi ninkan geeshuu wataa, waa generaal, geeshuu wataa, ciidan buu wataa, waa buuxaa, gurigu waa buuxaa. sheekho waan baqayaanita, waxaanu ciidan oo askara hubaysan oo adigii mataqaanaa kugu soo jeedo. dee bani aadan baa taa, waa baqaysaa ma ogtaa. sheekho waa buuxaa qolku, ciidama geeshu wataa, ninku ciidankiisii waa kana. waxba maaha buu yidhi, qur-aanka ilaahay ku akri. waxayna kaa dhex galo dholatuska uu sameynayo ciidanka tirada badan oo guriga keenay. waxaad ku dartaa bal ereyada uu isticmaalayay maxaa ka mid ahaa? boqor baan ahay, wuxuu dhahay waa runta halkaasan iloobeed. waxaan ahay buu yidhi anugu nin boqor ah, Mambaasaan deganahay, boqortooyo dhan baan ahay. waxaana waa geeshkaygii, ciidankan anaa wata, anaa boqor buu dhahay, anaa boqor. walaalayaal macnaha markii uu madaxa kasoo degay ninkii isagoo mindidiisii wata, hanjabaadii wadnaha ay socon weysay, madaxii mindida intuu ka qabtay ay arrintiina socon weysay. ninkii waa soo degay, ma intaasoo ku haray? maya, wuxuu isku dayay haddana inuu bal beyj cusub furo oo hanjabaad ah. wuxuu bilaabay inuu ciidankiisa u yeerto. qolkii iyo gurigo dhan ba isqabsaday, wada ciidan qabsadeen. maamadii wahaa qaylisay, cirkiga dhulka waa la tegay yimid, ciidanku waa tiro badan yahay. ninkii hanjabaad buu sameynayaa tiro badan.
wuxuu bilaabay inuu faano yidhaahdo ma taqaanid howlo khataraad faraha la gashay Mombasaan haystaa. ciidamaan haystaa boqortooyaan leeyahay waa africa magaalo kamid ayuu sheegay wuxuu yidhi halkaasaan deganahay boqortooyaan leeyahay ciidamo aad fara badan baan leeyahay waxba igama qaadi kartid markaasaan waxaan ku yidhi maamadaasi niyada ugu degto weydiiya waxaad tidhahdaa boqortooyada aad sheeganaysa ciidanka tirada badan leh xooga badan ma boqortooye ka baxsan milkiga ilaahay subxaana watacaala iyo dhulkiisa iyo cirkiisa ka baxsan ba mise waa boqortooye ka dhex dhisan dhulka dhexdiisa waa uu ka lexlexdo wuxuu isku dayay inuu arrimo kale ka jawaabo waxaan ku yidhi ha ka leexanin su-aashaa ka jawaab wuxuu yidhi maya waa magaalo ku dhex taala dhulka dhexdiisa boqorka ahay waxaan ku yidhi boqortooyooyinko dhan boqorkii boqorka u ahaabaa hooyada qur-aanka aan ku akrinaya iskale waana dhimanaysaa naftaada badbaadso waa kibray qur-aankii baa bilaabay ciidamadiisii tirada badnaa bal waxa ku dhacay aan maamada u daayo maama maxaa ku dhacay ciidamadii tirada badnaa ee guriga soo galay ninkii goodinayay oo boqorka sheeganayay oo magaalo dhan oo Afrika ka mid lahaa anaa boqorka ah oo geeshka watay oo isqaadqaaday ciidankiisii ilaahay awoodiisii buu ku baaba ilaahay awoodiisa Allah Allah awoodiisa subhanallah ilaah mutakabbirka awoodiisa ciidankii ninkii waa baabacay xoogaa wuu niyad jabay wuu arkay in baawar ka weynu haysto in ilaaha anigu aan ku goodiyayo oo sheeganayo oo magan gelayo oo u dhawaaqanaya ilaah awood badan inuu yahay wuu arkay ninkii wuu baqay marka ciidankii oo xaskusha markuu arkay wuu baqay xagga gabar fadhiday buu gadaasheeda ku gabaday waxaan ku iri sheekhow ninkii gabashuu gaaray meel halkaan ku gabanaya wad buu yiri quraanka sheekhina quraankii buu waday wiisaan waay meeshii buu ka soo baxo meel halkaan oo banaan u istaagay meeshii banaanka markuu istaagay ilaahay awoodiisa rabbiga raxmaanka waxba kama qarsoona laakiin aniga baawarka ilaahay baan ku arka ilaahay baawarkiisa ay tusay wuxuu sameeyay halkaa markuu istaagay shabaabkii wuxuu ka soo guray qashin ciida ka badan raah gaboobo indhala oo rimoor jiidanaya oo rimoorka bacsaas u waxaysan baa ku jiro xoogaa dheer oo bacdu ku xiran tahay waxay ku xiran tahay raah bacda qashin baa ka buuxa alaab baa ku jira wax daran oo tima iyo balaaya ku jira magacayga kor uga qoran waa shoogay anigii waxaan idhi bes waaye waa ku dhamaatay maanta hadiiba milc ku jiiday adiga alaabtaada iyo adduunkaagi shoog baan qaaday sheekhu wuxuu yiri no ha baqin Allah u dhiib arinta Allah magan gal Allah codso ilaah awoodiisa qabso ilaah awoodiisa ma qabsada ilaah awoodiisa ma qabsada ilaah magaciisa ma qabsada wuxuu yiri sheekhu waxaad akhridaa bil farq ilaah tawxiidkiisa iyo bil farq baan akhri bacdi waa furantay bacdi ilaahay awoodiisa subxaanahu wa tacaala bay ku furantay rahi indhaha la'aa bacdi waa ka furantay rahi horta waaba gubtay asagu waa tegey awal la indhaba ma hayno nin wuxuu ahaa indhala oo raran oo la raranayo la isticmaalayo kaas waa ku daayay bacdi baa soo hadhay bacdi sheekhow see yeelaa baan ku yiri ilaah bari buu yiri awoodda ilaahay qaado maalikul mulkiga oo ciidan soo dhaha ciidanka ilaahay ciidanka weyn ma jire ilaahay baan bariyay ilaahu gub ilaahu itus ilaahu gub ilaahu itus ilaahu awooddaada bas bacdi way furantay bacdi saa markay u furantay magacaygii iyo wixii iyo qashinkii ku jiray iyo wixii dhan waa gubteen iyaguna dambas bay noqdeen bal ilaahay awoodiisa iyo qaadirnimadiisa subxaanahu wa tacaala rabbul ciisa jalla wa jalaaluhu maskaxdaada wax ku soo dhici kara ma aha mucjisooyinka ilaahay qofka cilmiga leh oo diinta dhex galay oo kitaabka dhex galay oo cilmiga ilaahay bartay unbaa garan kara dadka yagaan aan cilmigaba dhex gelin mucjisadaasoo kale markuu arko yaqiin hor leh iyo caabudad hor leh iyo isdhiibid hor leh anigii baaba isdhiibay caawa awoodda ilaahay baan isku dhiibay baa wax ku jira aan garan waayay oo mugdi iiga jiray waxa ku jira yaa ka furatay bacdi gubatay iyo bahalkii raahi gubtay bacdi ilaahay awoodiisa way furantay markay furantay waxaa ku jira ilmaha madheertooda oo horeyna ka xiran gadaalla ka xiran oo qaarka hore dhiigaa ku jira qaarka dhexe waxaa ku jira wax yalow camala oo aan is iri
ma wax la miiray baa furo qalloocan oo saa u qalloocan baa ku dhex jira qaarka dhexe qaarka dambe waxaa ku jira uuska xoolaha oo la tuujiyey iyo isagiyo fadfad yara oo saa ugu wareegsan oo biyaha ku dhex jira de markaasaa alla bari bilowna sheekhiina wuu akhriyey awoodda ilaahay baanu akhrinay ilaahay baan baryay ilaahay baan magan galay yaa allah waxaan adaa awoodu leh ilaahu waxay yihiin ma naqaano ilaahay awoodiisa iyo mucjisadiisu wax aad u weyn weeye maskax bini aadan aan kusoo dhici karin wixii qur-aankii markii lagu akhriyey abeesada adduunka ugu weyn bay noqotay anaa ka baqay halkaa iyo halkaa inta ka dhexleh bay saa isu biliqda waxay leedahay carab dheer oo labadaas ka kala jeexan carabkii bay saas igu soo leedahay anigii bay saa igu soo leedahay carabkii anigii bay saa igu waa baqay shiikho ha biqin buu dhahay ha baqin ilaahay tawagal ilaahay isu dhiib ilaahay bari qaarkii dambaa dabku ka qabsaday dabadii dheeray baa dabkii ka qabsaday wuxuu socdo way rafatay madaxay ka rafatay naag waxaa ka soo baxday naag dheer la dhaho subxaan allah ilaahay awoodiisu fara badanaa wax yar eedo halka igu qabo insha Allah taala si walaalaha aan yani u baraarujiyo walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala sada socotaa wuxuu inoo tilmaamaya quraankiisa kariimka ah wuxuu leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala inama yakhsha Allah min cibaadihi alulama ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ugu taqwa badan ugu cabsi badan oo ka cabsada adoomadiisa caalim cilmiga leh maanta waxyaabaha hadda maamadu ay ka hadlayso hadaladeeda waa dareemaysan marka hore say ahayd iyo marka dambe say u tilmaamayso in ilaahay iimaan u ziyaadiyay in ilaahay awoodiisa ay aragtay waxaasoo dhan waxaa garan kara qofkii maanta indhihiisa ku arka ama qof arkay oo walaalkii ah intuu arka weliba qalbiga u furo dhagaysta hadalkiisa fiican u fahma marka rabbigeen subxaanahu wa tacaala waxaan idin tilmaamayaa sixirolayaasha qaabka ay wax u naqshadaynayaan markuu alla ka hadlay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayay إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إلهي يقول الله سبحانه وتعالى سحرولي مشو دون هجو علمي دون هذا سكست علمي بيسو هو هذا أدفانسد أما مد هرمسا هو هذا الله يقول لي من لي بالي سنة بابي سبحانه وتعالى وحد كيف فكرتها انت وحياب هذا الاسكوح الحرفيري أوستا فيري فراها فيري أبيسا فيري naag abeesa ku sii jirta fiiri waxaasoo naqshad ah ninkii watay ee jawaab ku watayna dhabarkeedu ka soo baxay waa dhibkeedii macnaha hadda intaysan maalinka hadda ay arkaysay maalmihii ka horreysay dhabarka iyo qoorta iyo meel walba oo intuu ku jira ah weliba hadalka maamada waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala way soo haldhaaftay markaa qur-aanka cabaar waday waxay bilaabeen inay cararaan jirkeeda waxay bilaabeen inay socdaan waxay isku dayay inuu baxsado kadibna markuu arkay inuu sabaxsan karin midigtu soo raacay gacanta bidix oo ka shubmay xasaan lilo halkaas uga shubmay markuu soo shubmay banaanka soo baxay wuxuu leeyahay waxaan jawaabka aan ku wato iyo hawshan iyo waxaan oo dhan waxa la igu talagalay dhabarkaaga ku jiro dhibkan halka ku wado laakiin sheekhana iga soo saaray isagoo marka jaahil ma fahmo quraan iyo Allah ma yaqaan subhanahu wa ta'ala wuxuu arkay wax marka uu arkayo kaliya شيخنا إجازة صاري بير شيخ كامل صاري رب العالمين والقرآن كتير صاري لكن واحد ولا فهمتان وحاسو سرعة ولا نخشلي ولا دياري الله داوني ولا سعودي أركي بعدنا دي بفرق إلهي بفرق والله هذا أركي سان ننكي كو خصبي ما هو يسوي شويس كيس دورتي يسوي كمتر جالسين خصب بوسود دادي وبقى يا وعقلي وحنا بقى إني باتي إجازة وانا خصوصا دي سيركي هذا أنا إلهي ببربري abeesadii ugu dambeysay waa tan maamada hadda ay marayso in dab qabsaday ee gubanaysay kadibna naagta ay ka soo baxday naagtii maxaa ku dhacay markii dambe markii hore kale ma ahi waxaan yeeshay geesnimaan yeeshay waan arkay ilaahay baawarkiisa markaan hidideela ay galay waxaaba rabaaba jinka inaan ugu sheeqo uga hormaro baabaasho because awal waa baqay ilaahay subxaanahu wa tacaala baqdintii wuu iga qaaday baawarkiisii buu i tusay waan yaqiinsaday waan si fiican baan ilaahay u bariyay sheekhina quraanka buu ku daldalay oo ku akhriyay aniguna ilaahay baan bariyay waxaan yaqiinsaday marka naagtaas inay baaba'ayso marka naagtii quraankii markii la saaray waa ay gubatay meeshii bay ku gubatay bartii bay ku bastay naagtii iyo rahii iyo abeesadii iyo bacdii iyo xuduntii iyo wax allaaliyo wixii ninkaas hoog iyo baa soo horgufay meeshii bay ku baaba'een
eedo marka dambas bay noqdeen dambas waxaasoo dhan marka ay dhacayaan ninkii muxuu sameynayaa fiirsanaya waa taagan yahay oo fiirsanaya awoodda ilaahay la yaabay sababtiisii isagoo waliba madluuna markii hore baawar buu isbidaayay anuuba ii gogoodinayo saan u dhahayay laakiin markaas isagoo madluun ah waad ujeeday inuu madluun yahay ayuu taagan yahay waana ujeedaa hortiisa ilaahay awoodiisa wuxuu samaynayo subxaan allah wuu ujeedaa rabbi subxaanahu watacaala wuxuu samaynaya muxuu falay marka wuxuu falay dee labada low buu dhigto wuxuu yiri mataqaanaa halla cabaar buu dooday maya cabaar buu dooday waxaa la yiri ma islaamaysaa ilaahay awoodiisa waad ujeedaayo ma qaadanaysaa ilaahay maalinta qiyaama waa ninka mataqaanaa loo soo baxayo bacadka jinni wal insi oo dhahaya yaa maanta maalinku mulki ah maanta yaa boqortooye u sugnaatay jinni wal insi waa dhoobantihiin kulli iyagoo suuxsan oo daciif aan awood lahayn yaa ilaahay isaas dhahaya oo ku goodinaya asaga isu jawaabaya ilaahay wuxuu leeyahay ana maalikul mulki aniga waaye maalikul mulki oo adduunka iyo aakhiraba iskale aniga waaye intaas markii uu aan dhahnay ninkii wuxuu dhahay jilbuhu dhigtay wuxuu dhahay waxaan doonayaa maaragtay waxa dhiba ay haysto dhahay dhiba ay haysto ilaahay aniga ma aqaani laakiin waan doonayaa inaan barto anigana qafaalkan waa laysoo qafaalay maamadan korkeeda waa la igu qafaalay lacag 500 la siiyey eri iyo dhiig baa la ii qalay waxaa la yiri maamadaa korkeeda adduunkan ku hay gubtay maanta wixii aad ogeydeen oo gubtay korkeeda ku hay baa la yiri waana khasbanahay caruurtaydiina waa la haystaa xoog baa loo haystaa iyo naagtayda xabis ay ku jiraan very good waxaan jeclahay walaaluhu inay nala soo galaan insha allah tacaala walaalayaal maamada waxyaaba hadda ina xasuusinaysa waxaa ka mid ah ninkii boqortooyu sheegtay marka hore ciidamo badanna waa soo bandhigay ugu talagalay inuu ku cabsiiyo aayadda hadda ina xasuusinayso allah subxana wa tacaala wuxuu leeyahay maalinka qiyaamo marka la tago dadkii oo dhan oo tabar daran malaa'igtu joogto insigu joogo jinnigu joogo kulli ay wada suxsan yihiin muxuu ka oranaya allah subxana wa tacaala liman ilmulku lyowm maanta yaa boqortooyo iskale yaa maanta boqortooyo ugu haysta hal qof oo hadli kara kuma jiro waa jinni waa insi waa malaa'ig waa xasharaad waa wax walba nuxnuxsoo dhaqaaqa yowm alqiyaama ilaahay markii wax u jawaabo uu waayo isaga isku jawaabaya allah subxana wa tacaala wuxuu oranayaa lilaahi alwaaxid alqahaar boqortooyo yaa iskale allaha waaxidka ah ee qahaarka alla keligii ah khasbidna u saaxiib ah allaha subxaana wa tacaala jinka hadda boqorka sheeganaya jirkeeda ku jira dhibka ku hayay banaanka intuu usoo saaray isagii ciidankiisaba kala saaray allaha boqortooyo cidna aysan ku haysan markuu arkay awoodiisii oo waxa hortiisa lagu sameynay u arkay jilbuhu dhigtay cabsigu bilaabo inuu isdhiibo madaxa dhiibtuu keena inuu yidhaahdo waxaan rabaa inaan allah rumeeyo subxana wa tacaala su-aashaan ku celiyo waxaa ka mid ahayd maxaa kugu qasbay inaad alla rumayso miyaa cabsatay wuxuu yidhi maya waxaan arkay awoodda rabbiga subxana wa tacaala intaasaa igu filan inaan rumeeyaan rabaa rabbi subxana wa tacaala anigana hala ii naxariisto maanta dhibkaan oo dhan waxa ii keenay maxbuus baan ahaa laftirkeyga maskiin la dullaystaan ahaa nin lasoo khasbay lacag la siiyey baan ahaa intaa haddii la iga hari lahaa mar baanba xataa ka bixi lahaa heshiiskii aan galay waxa iiga sideeran buy carruurtayda maxaabiis wey waa la haystaa islaanta iyo carruurta waa la haystaa waa la qafaashay waxaana loo haystaa rahmadax furasho ahaan haddaan lacalla dagaal kasoo noqdo iyagaa la rabaa in la cuno la dilo yani in qoorta loo dheerayaa la rabaa taasaan marka waxay ugu khasbaysa inaan ciddiyaha ku dagaalamo ilkaha ku dirno ninkii noocaas ahaa markii sheeko dheer kadib uu allah rumeeyey subxana wa tacaala qisadiisii maamadan u daynaya insha allah markuu alla rumeeyey ninkii maxaa dhacay wuxuu yiri waxaan u baahanahay see ilaahay u baranayaa see ilaahay u baranayaa annaga waxaa nala baray jesus christ inuu ilaah yahay oo isaga unbaa nala baray meeshaana wax jesus christ ka xoog badan wixii nala baray wax ka weyn oo mucjiso ah oo rabbaaniye ahan ujeedaa marka anigu see diinta ku geli karaa see ilaahay iyo diintiisa ugu tegi karaa waxaa la yidhi ilaahay iyo diintiisa waxaa ugu tegi kartaa mar haddaad islaamtay diin dad waxaa lagu geynayaa masaajid islaamig ah baa lagu geynayaa oo ilaahay diintiisa lagu hayo
oo dad mustaxiin ahoo mataqaanaa saalixiinho ay joogaan oo jinni wal insi qofkii soo islaamaba la aflixinayo oo qur-aanka loo barayo oo ilaahay wuxuu faray loo sheegayo salaad laga rabo oo soon laga rabo oo kulli wax walba wax kasta oo qofka islaamka lagu waajibiyey. eeda marka aan kaa dhex galo ma isaga oranaya waxaan rabaa diinta inaan barto walaalaha rabaa inaan diinta bartay meel aan ka bartay diinta ma aqaano buu dhahay waan islaamay laakiin hallay caawiyo waxay halka igu celi marka walaalayaal waxaan jeclahay in cibra qisada aan dhegaysanayno keliya aan iska daawano ma aha oo sida waxyaabaha waqtiga lagu lumiyo ma aha macnaa ku jira xigmad baa ku jirta rabbigeen subxaana watacaala waxyaabaha wuxuu bandhig ugu samaynayaa oo inoo tusaya inay cibra noo noqoto aan wax ku qaadano ninkaani waa jin waa boqor sixir intaa kasoo shaqeynay muddo badan ku mashquulsanaa maanta markuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah markiiba wuxuu ku fakeray inuu raadiyo diintiiba waxsu u baran lahaa inuu ka fakero waajibka alla saaray subxana watacaala iyo salaadiisii sida uu tukan lahaa inuu ka fakero soonkii iyo sida uu gudan lahaa innaga dad badan oo naga mid ah maanta oo muslimiin ah oo intaas laga yaaba inay intaasoo farac soo ahaayeen muslimiin oo waalidkood ay muslim ahaayeen maanta waxaa laga yaaba inaysan tukan waxaa laga yaaba inaysan qur-aankii aysan akhrisan baranin marka waxaan rabaa waxaas inay cibro idiin noqoto oo ninkan jinka aan ku wada dayano nabiyullaahi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu noo tilmaamayay in jinku inaga fiican yahay marba wuxuu yidhi baa la yidhaahdaa salawatullahi wasalaamu caleyh jinka idinka fiican arraxmaan markii ilaahay uu soo dejiyey suuradda arraxmaan la yidhaahdo mar kastoo ilaahay nimcooyinkiisa mid ka mid oo kasoo sheekeeyay rabbi wuxuu lahaa fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan nimcooyinka rabbi midkeebaa diidantihiin oo beeninaysa insigu dhagweyn waa iska dhagaystaa jinka wuxuu yidhi waa idinka fiicay waxay lahaayeen mar kastoo aayadda ay soo martay waxay lahaayeen walaa bishayin min nicmika rabbanaa nukadib falaka alxamdu ilaahu hal nimcooyinkaaga ka mida ma diidanin mana beeninayno mahadoo dhanna adiga iskale marka insha allahu tacaala waxaan rabaa jinkaa inaga fiican inaan ku dayano inaan isku dayno inaan diintii raadino salaadii raadino masaajidadii raadsano khayrkii raadino arrintaa qisada maanta ayay noo sababta arrintaas markaad ilaahay bariday subxana watacaala oo tiri ilaahu miskiinkan waa dhibay meel uu diinka bartana ma uu haysto anuuna rabaa inaan dad la raadiyo diinta bara ilaahayow na tus meel aan geyno oo diinta uu ku barto xagee masaajidkee lagu tusa masaajidkii ugu horeeyey oo aan arkay wuxuu ahaa masaajidka ku yaala Hobbs Crossing oo sheekh ciise masaajidka sheekh ciise waa masaajid magaalada Melbourne ee wadanka Australia ku yaala badan oo dadka Australia degan baa garan doona insha Allah waa gartay masaajidkii baan tagnay masaajidkii yaa joogay cidna ma joogin oo naga xirmay xilli lagu kala tagay maan ilaahay nagu beegay qadarta ilaahay meeshii cidla baan iska tagnay kabacdina sheekhi awla soo noqonay waxaan dhahnay war sheekhow meeshii cidla waaye xageen ninkaan geeya misna ilaahay baa barideen ilaahay baan barin ilaahay bari buu dhahaa sheekhu ilaaha bari ilaaha ku watay anu kuma watay ilaahay baan barinay baryo badan iyo nastaxnaan badan iyo shukri naq badan kabacdi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna tusay masjidka weyn ee Madiina Marwara masjidka ma isku sii daynay masjidka aan wax yar la socodsiin walaalaha masaajidka walaalaha ay maamada sheegayso waa masjid nabawi sallallahu alayhi wasallam masaajidka rasuulka nabawi masaajidka baan tagnay waa buuxa masaajidka dad badan baa ka buuxa oo jin iyo insi baa leh waa ka buuxa labaduba waa buuxa sheekha noo soo kacay ilaahay baan barinay ilaahu nacaawi ilaahu awoodaada iyo mucjisadaada weyn nagu caawi baryo badan ka bacdi sheekha noo soo kacay nin weyn oo maasha Allah sharaf iyo karaamo ka muuqato baa noo soo kacay marka ninkii baan waxaan iri ninkaan oo soo muslimay oo hadda walaalkeenahan wadaa oo islaama oo jinni ah oo u baahan inuu ilaahay wuxuu ku faral yeelay barto oo diinta barto oo mataqaanaa uu ilaahayga u soo noqday u cibaadaysto ninkii wuxuu yiri welcome laakiin waxaan ku iri sheekhow ninka caruurtiisa iyo naagtiisii xabis bay ku jiraan wuxuu nagu yiri xabis bay ku jiraan baan ku iri markaasuu xabisku xageeyay xabiska sheekhiiba ninkii baa la weydiiyay ninkii wuxuu yiri waa Kenya caruurtii Nairobi baa la iga haystaa iyo naagtii sheekhi markaan u sheegana wuxuu yiri de alla bari oo caawi dadka gabadhan
xiran iyo caruurteeda iyo ninka kula socdo oo muslimay reerka caawi buu i dhahay. ilaahay baan baryey ilaahu awoodaada nagu tus, ilaahu awoodaada nagu caawi, ilaahu awoodaada nagu caawi. waxaan soo barina ilaahay bas waa ka soo kacnay madiina, waa ka soo kacnoo kenyaanu nimid. gurigii reerku ku xirxiraa oo suuqi weynaa, muxuu ahaa suuqi weynaayo u dhowaa Garissa geeskeeda waqooyi ah yaa nala soo geliyey. gurigii markaanu nimid iridiisii waa istaagnay, waa cabsaday anigii ninka wadayba baaba cabsadayba. waa meel dad jeel ah oo jeel dad ku xiran yahay oo karbaashku ka socdo oo jeemanka waaweyn lagu garacaya dadka oo cabaadka ka yeeraya labadii dhagood gawa baa iga yeedhay. ummadda halkaa ku xirxiran gaal iyo muslimba dadku waa isugu jireen. qolol dhan oo saa u safan baad arkaysaa, darbi dheer oo aan la fuuli karin baa dhinacan ka ah. intaas oo tarsiga derbiga tarsiga hoostiisa guryuhu ku yaaleen, waa guryo gaagaaban oo xayn ah ilaa 6 ilaa 7 waa buuxaan. albaabadooda hore waa bir shabaq laho qof isaab ay wada haystaan iyagoo ooyaya oo cabaadaya, oo qaarna allow buuba leeyahay waa muslim, qaarna Jesus Christ iyo balay ku qaylinayaan iyo waxaan la garan karayn. ilaahay baan bari, waxaan ku waa aad baan u naxay, aad baan u khalkhalay. sheekhu wuxuu dhahayaa khalkhalina ilaahay bari, ilaahay baan barina quraankii baan la wada, ilaahay baan barina baryaba. wax yar aan ka dhex galo walaalahaas ay nala socdaan. walaalayaal waxaan rabay inaad la socotaan qisada insha Allah tacaala si fiican u fahantaan. masaajidka nabiga markay tagtay sallallahu wasalaamu calayhi, ninka ay tiri waan arkay oo soo istaagay dadka soo dhex baxay, waxay tilmaamaysaa maamul inuu ahaa oday gar cad leh oo ciro leh oo aada u ah, sujuudna ay wajigiisa ka muuqato, nuur fara badan oo ka muuqdo. wadaadada markaa jinka ka mid ah doonayana inuu soo dhaweeyo ninkan markaa soo muslimay. waxyaabaha ay kala hadlaysayna macnaha inagu haddaan muslimiin noloma ogola jinkaan kaashano, inaan adeegsanana lama ogola, inaan isdhex galnana ma aha hawlaheena noloma ogola. laakiin maadaama nin dhibaataysanoo maskiin ah, meel uu wax u raadsadayo cid uu diin ka raadsadan aysan garanayn, markii rabbigeed bariday oo tiri ilaahow itus oo caawi ninkan maskiinkaasi aan cid wax bartay ula raadsho, masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa loo geeyay oo jinkii muslimiinta ahaa ee meesha joogay loogu soo adeejinaya hawsha ilaah barto subhanahu wa ta'ala. ninkan maskiinka wax la baro, ninkii wuxuu yiri anaa xilka la wareegay, anaa diinta Allah baray subhanahu wa ta'ala ka xillo oo. laakiin arintii waxaa meesha soo baxday maxaabiista caruurtiisii la haystay oo uu jeclaystay inuu markaa la soo daayo. maamada markay tagtay dadka ay idin leedahay waa cabaadayaan, waa la garaacaya, waa la karbaashaya, dhibaato badan baa lagu haya, xabsiyada ka buuxaan ay leedahay. waa jin iyaguna muslimiin iyo gaalada isugu jira, sida insigu wax u dulmiyo oo wuxuu dhibaateeyo, jinkuna isku gumaystaan isku dhibaateeyo. dulmiga iyo dhibaatadu adduunka waa jiraysaa ilaa Allah subhanahu wa ta'ala loo tago yawm al-qiyaamah, hadhowtiina uu xisaab adag Allah subhanahu wa ta'ala dadka u kala mariyo. saa darteed waxaan leenahay insha Allah ta'ala ma aha kaliya dadka xabsiyada u furan yihiin dadka dhibaateynaya oo jin muslimiin iyo gaala aba dhibaya ma aha. waxaan leenahay dadka insiga ah iyo dadka jinniga ah labadaba kooda xabsi jooga iyo kan xabsi joogan oo kaliya shakhsi ahba ogaada dulmiga socda rabbul alamin suu hadda wax walba u tusay adoomadiisa buu god kasta iyo waxa ku jira oo la socda. الله وحو تلمامي سبحانه وتعالى لقمان مركو لها لقمان الحكمة مركو ويلكي سواني محوكيري ويلكي يقول هدو صحر جرو صحر في صخرة دقح كل حجرة عذك دحديث كل حجرة أو سمد جرى أما دولك الجوغة يأتي بها الله إلهي وكينا يوم القيامة دقح صحر آدوير أو دقح كل حجرة أما سمية الله أما دولك يا الله مجرو إلا يوم القيامة إلهي وكينا دونا سبحانه وتعالى معنى الله وحكا قرصون مجران الله أسمرك هدي إسوا وحكا قرصون محاكو حيقا حسابا كدبيسا صادرته waxaan leeyahay dadka sixirka sameeynaya dadka hawlaha dhibka ku mashquulsan insi iyo jinn waxay doonaan ba noqdaan ilaahay uga baqa subhanahu wa ta'ala ogaadana in Allah subhanahu wa ta'ala qalbi u arko dadkii marka u gashay cabaadkii shidadii dadka waxa ay tilmaamaysay in dadka sallallahu wata oo ay joogeen nimanka tilmaamba ka bixi kuwa waxay yihiin niman askar waay niman askar waay waa niman xoog badan dadka ugu xoog badan baa loo soo xulaan isiri markay qof ka yara ma jirin dad wada xoog badan oo strong ahaayeen jeeman bay haystaan jeemankan waaweyn baabuurtu markay lagu xiriiriyo gaarigu markuu ka fariisto jeemka weyn oo lagu xiriiriyo bay nimankan haystaan oo gacanta ugu duuban dadkii la dhacayaan
waa ku garaacayaan waa ku garaacayaan waa ku garaacayaan balowga isqabsanaya oo hinta iscabsanaysa dad laa ilaaha ila allahu le waa ka maqlayay dad jesus christ le waa ka maqlayay kuwa iskale waa ka maqlayay wax walba qof naf aan lahaynba qof naftu inay dhibaysa aad ujeedido iskale baad arkaysaa ani indhaha kuma dhammayn runtii aad baan uga naxay markaa ka bacdina ilaahay subxaanahu watacaala baan dacwad u dira yaa rabbi raxmaan yaa rabbi raxmaan ilaahu kuwaan waxba kama qaban karee tan miskiinta ah oo caruurta xunka haysato xabiska ku jira ilaahu kuwaan ilaahu tan noo xore ilaahu tan iyo caruurta noo xore walaa ninkeeda waa islaamay ilaahu adigu kuu soo noqday ilaahu awooddaada na tus ilaahu baawarkaaga na tus ilaahu mucjisadaada na tus bacdil barya badan iyo qur-aankii oo shiikhu waday waxaan helay mucjisadii ilaahay gabadhii buu noo soo xoreeyey markii gabadhii nimankii ka soo baxeen oo iyagu iska soo durkiyeen oo ay iyaga iyo annaga dhexdooda joogto baan waxaan ku yidhi shiikhow gabadhii waa naloo soo durkiyo intay taagantaha sheekh maxamed markaan u sheegana wuxuu dhahaa dee bisinka qabsoo soo kaxee gabadh bismillaah dheh subxaanallah dheh alla magaciisa qabso gabadha soo kaxee ilaahay magaciisaan qabsaday gabadhii baan soo kaxeeyey ninkeeda yaa keena markaa ka bacdi inaan hawshayadii wadana soo ma aha oo meeshiina laka qaabilay iyo madiine aadno oon alla bari gallo oona ilaahay weynayno oona ilaahay nastaano oona ilaahay u shukri naqano oo alla u niri oo ilaahay baawarka badnaa qabsano oo ilaahayna kulligayana dehadahiyo na kaxeeyey saanu u soconay alla bariga ugu jiray ba ilaahay u xisayey yaa mutakabiru yaa khaaliqu bashar yaa mutakabiru yaa saan u lahaa dhag masaajidkii weynaa baan hor istaagno nabiga sala allahu calayhi wasalam oo madiina shiikhii markii hore na qaabilay baa noo yimid shiikh waa la hadal waxaan dhana shiikho waa kana reerkii waa lasoo furay ilaahay baana awoodiisa kusoo furay allaha subxaanahu watacaala baa noo naxariistay ninkii soo islaamay oo alle isu soo dhiibay waa kan caruurtiisina waa lasoo furay marka caruurtan iyo ninkan iyo reerkan ilaahay darti iiga qabo ilaahay darti u xanaanee ilaahay darti wax u bara allihii abuurtay bara xaqu ka raba bara wuxuu ku waajib yeelay bar shiikhow masaajidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam oo adigu wakiil ka tahay baan aniga isaga wareejiyey dadkan ilaahay baana ii soo dhiibay anigu awooddaa ma lihi ilaahay baa ilaa melbourne australia ilaa kenya ilaa madiina awoodda ilaahay baan ku waday asaa aniga xataa i khasbay waa baawarka iyo mucjisooyinka ilaahay bay ka mid tahay yacni dadka aan aada diinta u baranoo daciifka ma looga sheekeyn kara mucjisadaan hadday xataa maqlaan waxay argagaxayaan wax mucjiso ahay ku noqonayaan oo la yaab leh oo maskaxdooda kusoo dhacayn laakiin aniga waa yaqiinsanaa ani xataa saasaan ahaa caawa ka hor waxaan dhihi lahaa haddii aan maqli lahaa waa riyoonayaan dadka laakiin life baan u arka ilaahay mucjisooyinkiisu wax walbay yihiin wax walbay yihiin waa awood badanaha caalamka isagaa xukuma wax walba kunbuu dhahayaa fayakumaaba noqonaya maxaa madiine igeeye ma awood baan leh maxaa kenya igeeye ma awood baan leh baawarkaas ma lahaan karo waa mucjisada ilaahay marka waxaan ka codsanayaa dadkayga soomaaliyeed iyo dadka islaamka ahba inay yaqiinsadaan allah inay isku xiraan inay isaga aaminaan inay qur-aanka isi saaraan qur-aanka waa mucjisada alluu ka mid mucjisooyinka ilaahay buu ka mid yahay sababtoo ah inta aan dhakhaatiirta ku wareegay haddaan qur-aan ku wareegi lahaa hawsha sooma heleen hal weeg oo aan qur-aanka ilaahay la igu akhriyey baan baawarka ilaahay ogaaday 27 sanana saasay ii jeedanayaan dhakhaatiir waliba wada gaalo ah oo aan waxba ogeyn marka ilaahay mahad waxay uga sugnaatay subxaanahu watacaala oo ii naxariistay oo cadowgan ogaa iiga hiliyey oo iga furdaashay oo miskiinkii aniga la igu kor qabiray oo la igu kor xiray yaa sabab iiga dhigay inuu ilaahay hanuuniyo oo xaqa qabsado mahaddaas ilaahay baa iska leh alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahu adaa mahad leh waxaa weeye ilaahu diintaada iyo xaqaaga nagu sug cido waxyaad halkaa insha allah tacaala igu qabo walaalayaal subxaan allah waxaan rajeynayaa qisada cajiibka ah maamada inaad la socotaan allah subxaana watacaala
wuxuu inoo tilmaamay suuratulbaqara la yidhaahdo. tusaale wuxuu alla inoogu soo qaaday si wax inoo fahansiiyo. nin yiri intuu magaalo soo maray baaba'san oo dhulka taalo oo dhimatay oo waqti hore ahayd, dadkeedii iyo iyadiina baaba'een, sariir wixii dhan isku dumeen buu alla wuxuu tilmaamaya ninkii inuu yiri yani sidee ilaahay waxaa usoo nooleynaya magaalada. alla wuxuu tilmaamaya caza wajal ninkii inuu nafta ka qaaday 100 sano oo meyd ahaa, kadibna uu soo nooleeyay, kadibna su-aalayo yiri meeqaad noolayd, meeqaad meyd ahayd, markaasuu yiri maalin ama maalin barkay qiimaha adduunka hurdada intay la eg tahay dhimashada, yani waxaan aysan waqti qaadanaynin. markaasuu yiri maalin ama maalin barkay. markaas alla wuxuu yiri subxaana watacaala bal labithta 100 caam, ma aha 100 sanaad meyd ahayd. ee undur ilaa tacaamika wa sharaabika lam yatasanah, bal fiiri cuntadaadii iyo cabitaankaagii isma bedelin. cunto iyo cabitaan 100 sano ma dhici kartaa meel inay yaallaan isbedela. waxaaba la tilmaamay weliba in xataa caano ahaayeen cabitaanku watay, caano bannaan la dhigay 3 beri kadib waa soo uray. 100 sano caano hadda isbedeli waayeen ka war iyo cuntadii. ninkii dameerkiisii lafihiisii ka war hadday baaba'san yihiin. markaas inta ilaahay intaa uga sitay wuxuu yiri weliba intaa kaliya maahe fiirsa sidaan weliba lafaha isku qabanayno, saan wax u nooleynay daawo soo ujeeda hortiisa lafii la isku qabtay la sameeyay la abuuray. markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir. marka intaas buu cadaatay wuxuu yiri hadda waxaan ogaaday allah wax walba inuu awoodo subhanahu wa ta'ala. qisadan waxaan rabaa walaalayaal inay fahansiiso inaan kulligan wada fahano allah inuu subhanahu wa ta'ala wax badan wax walba allah inuu awoodo subhanahu wa ta'ala, inayna fahansiisan doonayna insha Allah ta'ala. waxaan idinka codsanayaa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wa sallam maadaama dhowr jeer ay magaciisa soo celcelisay maamada kulligiin inaad nabiga sallallahu alayhi wa sallam ku sallallahu alayhi wa sallam. sidoo kale insha Allah ta'ala waxaan ka codsanayaa walaalaha dhamaato in walaalahan meesha fadhiya dhamaantood loo duceeyo, in maamada loo duceeyo, in ilaahay caafimaad iyo khayr iyo barako aan dhammaan lahayn kulli isugu daro. maama maxaad insha Allah ta'ala walaalahan dhowrka kuna aad waqtigaaga siisay maxaad kula dardaarmaysaa? walaalahayga muslimiinta ah waxaan kula dardaarmayaa, weliba kuwa afkayga garanaya oo Soomaalida ah, sababtoo ah waxaa laga yaabaa Carabiga iyo Turkishka iyo afkayga ma garanaya. marka walaalaha Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay quraanka Ilaahay isa saaraan, Ilaahay awoodiisana inay yaqiinsadaan, Ilaahayna inay baryaan. isbitaal waxba ma taraayo, Ilaahay quraankiisa ku carara, Ilaahay awoodiisa ku carara, Allah isu dhiiba, Allah magan gala. waxa weeye qof kasta oo jirada waxaan kula dardaarmayaa inuu Ilaahay uu ku cararo oo Ilaahay baryo oo quraanka isa saaro. quraanku waa shifo, laftirkiisaba mucjiso quraanku. Ilaahayna waa quwiyo, waa quwi weyn, waa Allah kabiirka ah, aad buu u awood badan yahay. wax aan meel aan filayn iyo wax kaaga keenaya, meel aad filayn yuu kaaga soo baxaya. qofka isku dhiibana wuu ku filan yahay Allah, waa ku filan yahay. mucjiso kasta Ilaahay baa leh oo haysta oo powerful ah. yaa mutakabbiru, shaatigiisa kibirkiisa waa shaatiga, kibirku waa shaatigiisa. marka walaalahay waxaan ka baryayaa inay quraanka isku dabiibaan, inay Ilaahay isu dhiibaan, inay isu duleeyaan, inay baryaan. meel kale oo la carara male. dhaqaatiir anaga ku noogay ha aadinina, Ilaahay aad. warku waa cadiyahay walaalayaal insha Allah ta'ala cidii doonaysa in barnaamijyada dambe aan soo wadnay awoodda alle iyo quraanka inuu yahay daawo oo rabtay inay la socoto waxaad nagala socon kartaa Facebook-gaas Muhammad Star Ruqya. cidii ku cusub waxaan leenahay waxaad taabataa like si video kasto aan soo gelin aad u hesho insha Allah ta'ala. intaan dib dambe hawada u kulmi doono. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.